Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay. Maanta waxaan rabaa inaan laba tip aan kula wadaago muuqaalkan. Qodobka ugu hore wuxuu yahay shay walba aan sameyno hadduu yahay text ama shapes iyo wixii la midka ah sidee ayaan centerka ku keeni lahayn. Qodobka labaad ee aan rabo inaan kula wadaago wuxuu yahay haddii aad tahay qof photographic ah ama haddaan hadalka si kale aan u dhigo haddii aad tahay qof inta badan sawiro qaado waxaad leedahay astaan adiga kuu gooni ah isla markaana mar walba aad sawiro qaado waxaad astaantaada aad gelisaa sawirada aad adigu qaado waxaase laga yaabaa astaantaas si lama filaan ah inay kaaga delete gareysmato intaysan dhicin midda waa inaad ku darsataa brush toolka marka daawasho wanaagsan. ugu horey markaad photoshopka aad soo furato qodobkeena ugu horey wuxuu ahay sidee shay walba aan sameyno sidee ayaan centerka aan ku keeni lahayn. ugu horeyn ka soo qaad waxaan sameynay shape ayaan sameysanay markaan shapekan aan sameysano marka anaga hadda shaygan centerka nooma joogo marka waxaan rabnaa shaygan anagoo move toolka aan kusoo jeedin inaan centerka aan keeno. ugu horeyn waxaad tagaysaa dhanka layerska ayaad tagaysaa markaad tagto sidaad u jeedo shapeka uu ku dooran yahay adigoo controlka haysa ayaadna backgroundka click ku siinaysaa waxaad dooratay labada selection ay ku saaran yihiin kadib move toolka ayaad tagaysaa markaad tagto waxaad ka sii xulanaysaa align horizontal center ayaad ka sii xulanaysaa align vertical center kadib sidaad u jeedo shay walba aad adiga rabto waxa lagu keenay centerka ayaa lagu keenay waxaad samaysay shape sidan oo kale amal ayaad samaysay waxaad rabtaa inaad qoraal aad ku dhex qorto qoraalkan ayaan ku qoranay ka soo qaad qoraalkan haddaan ku qorano hadda qoraalkan hadda aan qornay centerka ma yaala marka waxaan rabnaa inaan centerka aan keeno kaliya waxaad samaynaysaa move toolka ayaad xulanaysaa sidaad u jeedo dhanka layerska markaad tagto textiga select wuu ku saaran yahay controlka ayaad qabanaysaa shapeka ayaad dooranaysaa markaad shapeka aad doorato kadib waxaad kasii xulanaysaa move toolka kadib waxaad kasii xulanaysaa align horizontal center meeshan kale waxaad kasii xulanaysaa align vertical center ayaad kasii xulanaysaa marka sidaad u jeedo textiga waxaa lagu keenayaa centerka ayaa lagu keenayaa. qodobka labaadna wuxuu ahay sidee astaantaada adiga ku gaarka ah aad ugu darsan kartaa brush toolka. sidaad u jeedo kaba soo qaad waxaan leeyahay astaantan ayaan leeyahay marka waxaan rabaa mar walbo aan sawir aan qaado waxaan rabaa in astaanteeda aan ku daro sawirkaasi sidee ayaan ugu dari karnaa brush toolka. marka ugu horeyso backgroundkan visible layerkiisa click ayaad ku siinaysaa waad ka qaadaysaa waxaad tagaysaa image kadib waxaad kasii xulinaysaa trim kadib meeshan waxaad kasii xulinaysaa transparency pixels meeshan waa inaad ka hubisaa inay ku saaran tahay topka waa inuu jeega ku saaran yahay bottomka waa inuu jeega ku saaran yahay iyo labadan qodobkan left iyo right-ka waa inuu jeega ku saaran yahay kadib waxaad leedahay okay. sidaad u jeedo backgroundkii weynaa waxaa lagu fidgareeyay shayga adiga ku gaarka ah ayaa lagu jaangooyay markaas kadib waxaad tagaysaa sidaad ugu darto brush toolka marka hore waxaad tagaysaa edit kadib waxaad kasii xulinaysaa define brush preset waa presetna sidan hore aan ugu soo sharxno waa shay adiga aad samaysatay ayaa preset la yiraahdaa kadib define preset meeshan waxaan ku qoranaynaa magac my logo ayaan ku qoranaynaa kadib waxaan leenahay okay. sidaad u jeedo hadda markaan brush toolka aan tagno kadibna aan furno electas markaan furno sidaad u jeedo meeshan waxay nogula soo daray qoraalkii hadda ahay my logo kaba soo qaad waxaan rabaa in aan loogadeeda aan sawirkan inaan saaro ayaan rabaa kaliya ma igaaga baahno inaan taabkan kale aan soo furo aan soo dragging gareeyo aan taabkan kale aan keeno igaagama baahna kaliya waxay igaaga baahan tahay inaan brush toolka aan furo kadibna aan kasii xusto electas markaan furo aan kasii xusto my logo preset inaan ka xusto kaliya markaan click aan ku siiyo brush toolka size-kiisa aad iyo aad ayuu u weyn yahay kaliya waxaan ka yareynaynaa square bracketska dhanka leftiga midka jiro ayaad ka yareynaysaa dhanka right-kana midka jiro waad ka weyneynaysaa waa square bracketska markaan yareyno sidaad u jeedo sawirada midna wuxuu noqon karaa backgroundkiisa black ayuu noqon karaa midna wuxuu noqon karaa white ayuu noqon karaa marka midka black waxa ku soo baxayo loogadaada inay ahaato white inay ahaato ayaa aad iyo aad ugu soo baxaya midka white kana waxa ku soo baxayo mid black ayaa ku soo baxayo marka ugu horeyso meeshan foreground colorska waan furaynaa markaan furno waxaan dooranaynaa color white ayaan dooranaynaa kadib okay ayaan leenahay kadib waxaan sameynaynaa loogadeena ayaan meeshaan rabno click ku siinaynaa sidaad u jeedo astaanteena waxa lagu daray sawirkan ayaa lagu daray marka hadba sawir walbo aad editing gareynayso kaagama baahna inaad loogada aad ka dhex raadiso computerka gudihiisa kaliya waxay kaaga baahan tahay inaad brush toolka aad xulato
kadibna loogadaada meesha adigoo rabto inaad kilig aad ku siiso sidaasna aad ku saarato ka faa'iidaysi wanaagsan fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan haddaad videogan ka faa'iiday laagarey waad ku mahadsan tahay daabashada videogan waxay idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.